Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Isku soo laabasho wanaagsan waa Cumar Muxdiin oo idinkala soo hadlaya Sumano. Maanta waxaa ka hadlaynaa 5 website ama 5 tool oo AI ah oo muhiim ah inaad isticmaashid weliba waqti xaadirkan. Website-yadan waa free plan ayaa ku bilaabi kartaa. Mid walbana wuxuu qabanaa shaqo gaar ah. Mid cod ayuu hagaajiyaa, mid sawir ayuu kuu sameynaa, weliba isaga si professional u sameynaa. Mid wuxuu ku diyaarinaa muuqaal ayuu ku hagaajinaa, mid cilmi baaris ayaa ku sameyn kartaa ama research. Bal aan isla fiirino mid walba shaqada uu qabanayo. Number 5 ayaa ka bilaabaynaa waa 11 Labs. Haddii aad weligaa rabtay in qoraal aad u beddesho cod dabiici ah, 11 Labs waa meesha ugu fiican. Waxay kuu sameynaysaa voice over oo tayo sare leh, xitaa af Soomaali. Af Soomaali ayaad ku sameyn kartaa. Wuxuu waxtar weyn u leeyahay sida YouTuberada, ardayda oo u baahan in sheeko oo akhris ay diyaariyaan, amaba qofkii raba inuu codkiisa ku daro xayeysiis amaba productyada uu ku xayeysiiyo. Wuxuu leeyahay qayb free plan ah oo trial oo kale ah, marka waad tijaabin kartaa. Kolley dhammaan linkyada description-ka ayaad ka heli doontaa. Kan afaraad ayaan u gudbaynaa waa Nano Banana. Waa sirta sawir hagaajinta. Run ahaantii toolkan markuu soo baxay amaba softwarekan markuu soo baxay, waxyaabo badan ayuu khadka ka saaray sida Photoshop oo kale. Waa complete image editing software waaye. Bal qiyaas adigoo qalcad ku dhex samayn karo xeebta liido xilli qorax dhac ay tahay. Imagine intaas dhan wuxuu ku diyaarin karaa Nano Banana. Nano Banana wuu fudud yahay, waa degdeg weye, wuxuuna ku fiican yahay sida boosterska, thumbnailska, fan artska. Waa tijaabin kartaa. Linka waxaa dhigi doonaa qaybta description-ka. Midka saddexaad waa Seedream. Qoraalkaaga u beddel muuqaal. Weliba professional ayuu ku yahay midkan. Halka Nano Banana sawir kuu sameynaya, Seedream wuxuu ku qorayaa amaba wuxuu qoraalkaaga ka dhigayaa muuqaal dhaqdhaqaaqaya. Tusaale ahaan waxaad qortaa nin socdaal ku maraya bahraha Soomaali, kadib AI ayaa ku siinayo muuqaal la yaab leh. Midka labaad Midjourney. Wow, midkan waxaa la dhihi karaa waa professional. Waa heer caalami ah marka la eego sawir diyaarinta iyo weliba muuqaal hagaajinta. Midkan waxaa lagu isticmaalaa waa AI oo lagu isticmaalo Discord. Wuxuuna ku siinayaa sawiro diga sare leh oo aad u sareeyo oo farshaxano leh. Designs ayuu ku siinayaa, posters ayuu ku siinayaa, amaba xitaa sheekooyin aad rabto in aad sawir u beddesho. Midjourney waa tool ay xirfadlayaasha badna isticmaalaan. Wuxuu leeyahay qayb free trial ah, laakiin hadda qaybtaas free trial-ka waa ka saareen shirkadda. Keliya waa qaybta subscription-ka, marka wuu u qalmaa. Last but not least, maskaxda AI-ga ChatGPT. Qof walba wuxuu qasab ku yahay maanta in uu ChatGPT isticmaalo, waayo howlahaaga oo dhan ayuu ku fududaynaa. Tani waa maskaxda AI-ga. Wuxuu ku fiican yahay cilmi baarista, qoraalka, turjumaadda iyo xalinta su'aalaha adag. Arday, bloggers, ganacsato wuxuu ChatGPT uga helaa shaqo u gaar ah. ChatGPT-na free plan ayuu leeyahay. Marka intaas waa 5 website ee maanta aan rabay inaan la wadaago. Waa mahadsantihiin. Tan intaan dib u kulmi doono, mar walba channelkan subscribe ku ahaado si aad ula socoto waxyaabaha muhiimka ah halkan kusoo gudbayo. Waa mahadsantihiin.